dhowrkii saacadood ee ugu dambeeyay waxaa aad baraha bulshada u qabsaday ka falcelinta muuqaalo iyo sawirro si wada jir ay u wada galeen labadan si weyn oo shakhsiyadooda dadka Soomaalidu aad u yaqaanaan. fanaanka weyn Ilka Casaqays oo ku caanbaxay qaadista heesaha raabka iyo Nimco Joker oo ayna ku soo caanbaxday jilista riwaayadaha iyo weliba ka qoslinta dadka kaftankeeda iyo weliba sheekooyinkeeda kale ee gaarka ay ku baahiso aaladda social media-ha. maanta kama hadlayno shakhsiyadda labadan qof ee waxaan isdul istaagaynaa dhab ahaanshaha sheekada la xiriirta meherka labadan qof oo si weyn loogu yaqaano dhulka Soomaalida. baraha bulshada xalay saaka ilaa maanta ayay si weyn u qabsadeen falcelinta muuqaalo iyo sawirro si gaar ay u soo dhigtay Nimco Joker ay ku muujinayso in marka nolol cusub ay la wadaagtay fanaanka weyn Ilka Casaqays. waxaa soo baxaya in xafladooda meherka uu ka dhacay gudaha Mareykanka aysan jirin aroos weyn laakiin xafladda meherka uu dhacay laguna hambalyeeyo labadan lamaane cusub Nimco iyo weliba fanaanka weyn Ilka Casaqays. arrintu waxaa xiisaha u sii yeelaysa waxay tahay markii Nimco Joker boggeeda Facebook ay soo gelisay muuqaalkan. markaad daawato muuqaalkan erayada heesta ku jirta iyo nimcaha iyo qanacsanida dhoola cadeynta ka muuqato ayay dad badan sawir guud ka qaateen macluumaadka iyo sax ahaanshaha sheekada la xiriira inay ismehersadeen ayada iyo weliba Ilka Casaqays. Nimco ayaa la xasuustaa 2 sano ka hor inay kala tageen fanaanka weyn Faysal Xawaas oo ah fanaaniinta Yurub ku nool gaar ahaan dalkaasi Sweden. inkastoo kala tagooda loo sababeeyay inay isku imaan waayeen maadaama ay kala joogaan 2 qaaradood oo Yurub iyo Ameerika, taasoo sabab ka dhigtay cilada ugu weyn in qoyskaas oo burburo maadaama Faysal Xawaas ay ku adkaatay inuu imaado Mareykanka. si lamida Nimco qudhoodu way ku adkaatay inay ka baxdo Mareykanka oo qaaradda Yurub ay tagto gaar ahaan halka uu ku nool yahay saaxiibkeedii hore ee Sweden. kala tagaasi kadib waxaa la soo sheegayaa in xiriirka iyo saaxiibtinimadu waqtigaas wixii ka dambeeyay uu bilaabatay Ilka Casaqays. Ilka Casaqays waa fanaan ku caanbaxay qaadista heesaha raabka. inkastoo Ilka Casaqays uu yahay fanaan qaadista heesaha raabka ayaa haddana sanadkii ugu dambeeyay waxa uu inta badan ugu joogay Soomaaliya iyo gaar ahaan magaalada Nairobi, Kenya oo dhowr bilood uu ku sugnaa. sidoo kale mar uu joogay magaalada Kismaayo halkaas oo isna dhowr bilood uu joogay xilligii doorashada Axmed Madoobe. waxaa la soo sheegayaa asaga iyo Axmed Madoobe markii ay isku dhaceen ayna fashilmeen qorshihii ugu weynaa uu soo gaaray Kismaayo kadib ay suurto gashay inuu dib ugu noqdo Mareykanka oo halkii uu deganaa markii hore. Ilka Casaqays wax badan lagama oga noloshiisa qaaska marka loo eego, inkastoo dad badan ay sheegayaan in ay jiraan fanaaniin kale oo hore u soo guursaday oo diiwaanka ugu jirto fanaanada Nimco Dareen iyo weliba sidoo kale shakhsiyaad kale oo aan ilaa hadda la ogaan. laakiin waxaan isdul istaagaynaa macluumaadka sheekadan. markaad eegto baraha bulshada falcelinta iyo hambalyada loo diray labadan qof ayaa ku muujinaysa sax ahaanshaha. waxaan sameynay isku dayo iyo xaqiiqooyinka sheekadan inaan xaqiijino. waxaan xiriiro la sameynay labadan fanaan waa fanaanka Ilka Casaqays weliba Nimco oo labaduba Mareykanka ku sugan. inkastoo ay noo jaakireen oo aysan si weyn arrintan kaga hadal, laakiin haddana waxaa muuqanaysa inay sax tahay arrintan maadaama muuqaalada iyo falcelinta iyo erayada Nimco ay u badan yihiin kuwa xaqiijinaya. laakiin dad kaloo la nool Mareykanka ku sugan oo saaxiibo dhow yihiin Ilka Casaqays ayaan ka soo xiganay sax ahaanshaha sheekadan. Nimco ayaa dhowrkii toddobaadii ugu dambeysay waxa ay dagaal xooggan ka waday baraha bulshada iyadoo weliba dagaal xooggan kala dhaxeeyay wariyaha caanka ah Daahir Cabdulle Cali Sow. inkastoo dagaalkaas uu yahay mid weli jira oo sii jiitamaya ayaa haddana xad moodaan dagaalkaas uu qaboojinayo meherka Ilka Casaqays Nimco. sheekadani saaxiibayaal wixii ku soo kordhaa falcelinta baraha bulshada wax walba oo dadku ay hadal hayaan iyo sida loo xiiseynayo ayaan boggiga Facebook aan ku baahi doonaa. macluumaadyo joogto ah iyo sheekooyin qosol leh ayaana nagala socotaan saaxiibayaal. arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka dalkana kama marna. maantana muuqaalkeenina saaxiibayaal halkaas ayaan ku soo koobaynaa. nabadgelyo.